saddexaad waaye ee aan koobkan qaadayo maasha allah walaal waxay soo tiglaysaa halka ka baxsan muqdishada waxaa xoogaa asfaaniye miisiga gabdhaha inaa ahayo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محمد حسن يوتيوب كداون إنسان another one تعد ملول بقى الدنيا ذيك جوكتان تيم another one تيم كأن كل إنتو تيم كودنيجا عن كقرن يسميه كالجعل وقصوا دواد ودكم ما سنتين داوش هذا فيديو دان صديقه فضلا هدياكو عصبتان حنكاعد سنة يا داود ماشي على مد جدودا جالك وسبسكرايب كصديق فرت إيوتاو معايا لشروط مكوحرين جالك لعق ما لجربه وفري بالله شوي فرت هذا الصار وفري أنا أقول لعق لآن واي حتى هذا بخيلتهاي سامم كوجو يلنسو فرت صار قبل كفرو سيادانية أركتو مالين والبو فيديو كنا لاك سارة مهمة وتاجنال كنا لاك سارتان ودنكم أسنتيهين لجرستيني لجوغستينا سيدا عادة دخن كايدنا كسو دوادا برنامج كدبك هذا برنامج كدبك هذا وحاربا إنا وقاهد له أما أنكسو قات مانتا وحال سوق بقبية ونتيجة دي لشيغي برنامج داد بدن أي ودي سوغايين والصومال نايد أوارد لدو sanadle barnaamij sanadleed lagu abaalmariyo dadka sanadkaasi dhan bulshada dhexdooda saameynta ku yeeshay hadduu fanaan yahay hadduu youtuber yahay hadduu wax kale yahay macnaha saameyn bulshada ku yeeshay baa la qiimeeyaa waxaa la siiyaa bilad annaga youtuber aan ahay youtuber leena khuseeyo waxaan soo qaatay qofta ugu fiicneed dhanka shactarada iyo youtuberka ugu fiicnaa dhanka ragga iyo youtuberada ugu fiicneed dhanka dumarka marka hore waxaa rabaa inaan ku hormaro youtuberada ugu fiicneed dhanka shactarada ama comitiga qofta ku guuleysatay sanadkii saddexaad waaye ee aan koobkan qaadayo maasha allah walaal waxay soo tiglaysaa halka ka baxsan muqdishada waxaa xoogaa asfaaniye miisiga gabdhaha inaa ahayo congratulations aan leeyahay shaadii sharaf shaadii sharaf laguma haysto xaqiiqda waa qofka keliya ee bannaan taagan oo macnaha gabar maanta comedian oo youtuber ah oo intay soo fariisato sida shaadii sharaf oo kale kaaga qoslinayso weli ma arkin laga yaab inay jirto laakiin ani ahaan shaahid weli ma dhihin sidaas darteed shaadii sharaf way u qalantaa inay noqoto markii saddexaad best youtuber comedy way u qalantaa waa ugu shubay anigana codka waa u qalantaa doodka ma taagna dadkii ku soo doortayna waxay kuu soo doorteen cadaalad iyo sinaan booskaas sababtoo ah waa u qalantaas dad badan baa ka qoslisaa kumanaan kun ayaa maalintii farxadooda macnaha aa samaysaa aa ka qoslisaa aa maaweelisaa inkastoo baabajey aan jeclaan lahaa asigana inuu goobjoog ahaado oo comediya dhanka ragga la siiyo laakiin hadda shaadii sharaf dood kama taagno codkeyna waa ku siinay youtuberka ku xigo aan soo qabanayo waa ninka ku guuleystay liibaan aadan cali lii caato aan aragno waayahay liibaan aadan cali la saabiyo youtube ku xoog lahayo noqday magaalooyin badan oo ninkan Soomaalidu tagay ugu dambeyn mustaqbalkiisa youtube ku dhimay waa fanaan isku beddelay waaragteen lii caato waa youtuber aad u wanaagsan youtuberada aan aad ku jeclahay number 2 ka yahay waa wiil degan akhlaaq leh wax qabad leh dadka ka qosliya asigana uma qalmo malihi wuu u qalmaa walow rag badan oo dadaaleen ay jirto sanadkan oo kamid yahay asad xaajiyo oo kale oo soo saaray barnaamijyo kala duwan oo aan hore loo arkin haba ka soo minguuriyey dadka youtuberada kale caalamka barnaamijyo qaar uu ka soo koobiyey iska jiro laakiin bulshada Soomaalida dhexdeed wax aan hore loo arkin waa qofka keenay asigana sanadkan waxa isdhahay best youtuber of the year uu noqonaa dhanka ragga laakiin haddii aad guuleysatay ma ahan micnaha inaad dadka dhanka fiican tahay nasiibkaa ku saaciday haddii aad guuldareysatidna ma ahan inaad dadka dhanka xun tahay nasiibka ayaa kuu diiday marka asad xaajiyo waxaan leeyahay waa dadaashay sanadkan waad u qalantay ani ahaantii ticada ahaan inaad noqotid best youtuber laakiin
waa dhanka nasiibka taasi ay ka dhinaatay kuma dhahay waa lagu xasday kuma dhahay si kale wax lagugu sameeyey laakiin qofka guuleysta mar walbo waxa waaye nasiibkaa saaciday qofka guuldareystana mar walbo waxa waaye nasiibkaa ciile ma ahan in uu yahay qof aan dadaalin dad badanaa dadaalayo dad badanaa rabo inay noqdaan kor laakiin haddana nasiibkaa qaarkood kala reebayo marka sidaas darteed asad xaajiyow waa dadaashay tiitacadda ahaan best youtuber sanadkan waa ku siin lahaa laakiin nasiibkaa ku saacidi waaye anigoo aan dhanna u eegeynin qofka ku guuleystayna waa qof u qalmay hadda uma qalmina ma dhahay lii caato wiil u qalmo wuu yahay best youtuber dhanka ragga waxaan leeyahay congratulation hambalyo youtuberadda saddexaad oo aan soo qaadanayno dhanka dumarkay ku guuleysatay waa nasro abtidoon ugu horeyn waxaa mahadis kale allah subxaana wa tacaala ii suurageliyey guusha ma aha wax iska helo laakiin ilaah hadduu kugu talagalo waa guuleysan sax sida ay nasroba ka dhawaajisay ayaa xaqiiq ah guusha layskama helo qof kasta guul ma helo qof kasta ma guul dareysto laakiin hadduu ilaahay ku siiyo guusha waa guuleysanaye nasro waa markii saddexaad haddii aan qaldin in ay helayso ayadana youtuberada ugu fiican dhanka dumarka walow sanadkan aniga ahaan aan islahaa hodan online baa dadaashay hodan online baa sanadkan la qiimeyn doonaa sanadkana best youtuber dhanka dumarka waxaa qaadi doonta hodan online sidaa aniga aan iska dhaadhiciyey ama aan ku fikirayay ama aan isdhahay waay sababtoo ah hodan online sanadkan aad bay u dadaashay oo micnaha dadaal dhan walba ay samaysay horumar dhan walbana way samaysay barnaamijyo ay dadka jeclaadaan oo ayaduna dadaal ay ku bixiso maalintii ugu yaraan 2 fiideo ilaa 3 fiideo oo tayo leh oo ay uga hadlayso waxyaalo dhacay waxyaalo la yaab leh waxyaalo argagaxa oo bulshaduna micnaha ay ku cimri qaadanayaan qaarkood wax ka faa'iidayaan ayay sanadkan la timid hodan online aad bay ugu qalantay sanadkan inay noqoto best youtuber dhanka dumarka laakiin hodan online ma ahan haddii aad guuleysan weysay in aad dadaal yareysay laakiin nasiibka ayaa ku saacidi waa siday nasraba sheegtay waxay tiri qof kasta oo guuleysanayo waa ilaahay in uu siiyo guushaasi dadaalkuna mareebana marka nasro ayaduna way u qalantay inay noqoto best youtuber dhanka dumarka uma qalanto ma dhahay haddana fikir ahaanteeda sanadkan waxaa u qalantay inay noqoto best youtuber hodan online oo dadaashay runtii waxaynu u dadaashay si aan caadi ahayn gabadhaasi way u qalantay sanadkan in turkiga istanbul ay kasoo qaado bilad laakiin ilaahay xaggiisa uguma qorneen waxaan leeyahay nasra abtiton congratulation uma qalantid kuma dhahay waa u qalantaa laakiin sanadkan ani fikri ahaanteeda hodan online a kaa lehed haddana sidaasay tahay hambalyo aan ku leeyahay congratulation guusha aa gaarteen dhammaan youtuberada soomaaliyeed haddii comedya noqoto haddii dhanka ragga noqoto haddii dhanka dumarka noqoto waxaan idin leeyahay dadaalka meeshaa laga sii wado kulligeen waa rabnaa inaan noqono best youtuber of the year best of season laakiin haddana qof walba maalintiis ayuu gaaraa dadaalka mareebana hala dadaalaan leeyahay hodan online waxaan leeyahay ha caajisin ha niyad jabin sanadka dambe haddii ay suurtagal noqoto inaa qaadaan ku rajeynaa best youtuber haddii wax kala jirin sanadka dambe insha allah adigaa iskale dadaalka meesha ka sii wad tan iyo kulantideena dambe